عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لانت بصاحبة قالقة كحران channel كنا لك شو وولاش لك شو وإذا لها عيد مبارك أصحابتي ذا قالقة رنانتي وحرتين يا بشهر رمضان بشدة لأنكو قارنا خير عاف مالقب وحن كله بش يبراق ينقص لا يسقصار فلنا إن شاء الله بإذن الله الكريم إن لها عمري قرينا ولا غير ما نتنبأ وحن مهد علنا يا دمان أصحابتي قالقة يقول حران كوي هذا يقول صبيري يكوي هري إلى شو وحن لي هاي دمان تنبأ آدي بدل ما سنتين أنا ويديك على هاي sidoo kale asxaabta commentiga quruxda badan ee soo qoray iyagana ma ilaawi karayo waxaad leeyahay aad iyo aad mahadsantiin dhamaantiinba aan caawa waxaan rabaa inaan ka hadlo arrin bariyahanba social media haystay aan horena uga soo hadlay arrinkaas oo ah Cabdimaalig Muuse Caldoon wariyihii maxay tahay aan ku naqaanay wariye iyo samafalaba dadka masaakiintaana badan caawin jiray sidaan hore muuqaalkayga hore aan uga soo hadlay aan baan ugu soo sheegayba haddaba arrinkaas oo waxaan ku leeyahay ilaa shalay hadana la lahaa waa la soo daayay Cabdimaalig Muuse Caldoon bal arrinka maxaa ka jira marunba mise waa been aan arkay in maxay tahay la soo dhigay sawiraantiisii amba muuqaal caadi laga soo diyaariyay la soo dhigayo runtii aad iyo aad baan u farxay sababta aan u farxayna waxa weeye madaxweynuhu waa aqbalay codsigii bulshada u gudbisay iyo codsigii Maxamed Saciid Bike محمد سعيد أن هرم مقال كي وطاونا محمد سعيد بك أي قعد صدى مدحونها إلا إن لسيد أيو وريها عدوان Muuse Caldoon هذا بقى وان فرحي صوته مفرحين واحد إن عد سجل أقبله أي الموضوع لسيد أي هذا نوع نحوح نسدي هدي لسيد أي وريها محوسه هالواي أم بمحل أركواي سوى السوشيال ميديا كهالليا أم بدي وحن كله يقف مركز سود أي حنا وإنه هلا أم بلا أركاده أنت منا ومنا أرك مركها لما عدين كريو إلا سود أي إنه حرين هاي أنا هذا بقى هدي لسود أي Cabdimaalig Muuse Caldoon horta waa inoo farxad dhamaanteynba waayo wuxuu haanin inaga inoo gargaara masaakiinta caawiya dadkeena liita iyo dadkeena bukaba caawiya inta caawin kare karaankiisa ilaahay ba wax kasta haya balse laakiin isagu wuxuu ku caawin jiray inta karaankiisa amba inta awoodda uu ilaahay siiyay markaas horta in markasta la caawina aad iyo aad bay qurux badan tahay haddaba haddii aan la soo deynin Cabdimaalig Muuse Caldoon waxaan ka codsan lahaa dawladda amba madaxweynaha in waxaan ku leeyahay baaqaygu sidii uu yahay aan baaqay ku soo dirayno aan leenahay miskiinka yar Cabdimaalig Muuse Caldoon iska soo daa sababta aad ku soo deynaysidna kulay dad waxa la qofka qof u gargaara isagana ilaahay baa u gargaara marka horta taa ilaahay baa aan leenahay ilaahay ha u gargaaro oo waxaan ku leeyahay taa ka soo furdaamiyo marka kulli qofka bilaadanka qalad uu galaa qof aan qalad galin ma jiro qofka sana sharciga uu hoggaansan yahay hadii maanta aad qalad gashid sharcigiisa lagu maray wadan kastana sharciyo xeer baa u yaala kulli laga yaabaa inuu isagu wax hawlihiisaas ay jiraan uu sameeyay amba qalad ah marka waxaan ka codsan lahaa dawladda inay iska cafiyaan waayo wuxuu ahaa nin wanaagsan oo waxaan ku leeyahay umada caawiyo intaas horta wax la siistaa ma jirto qofka hadduu qof bilaadan caawiyana isna waa la caawiyaa oo loo naxariistaa waayo si walaalkiisa dhibaataysan uu caawinayo ayaa isaguna maanta markuu dhibaataysan yahay loo caawiyaa marka mar koowaad iyo mar labaad waxaan codsan lahaa haddii uu xiran yahay in la iska soo fasaxo haddii la soo daayana inuu dad badan oo shicib jira oo waxaan ku leeyahay u heelan oo Cabdimaalig Muuse Caldoon waxaan ku leeyahay maanta waxaan ku leeyahay ka wada naxsan oo waxaan ku leeyahay niyad ka wada xun tahay inuu soo hadlo oo yiraahdo waa la soo daayay way kan oo yacni dadka taageerayaashiisa ah amba dadka ku xiran oo yacni oo la soo hadlo ayaan aad iyo aad u jeclaan lahaa haddii la soo daayay way haddii aan la soo dayna baaqayga waa bartii horta sida aan hore u sheegnayba madaxweynaha waxaan uga codsanay inuu waxaan ku leeyahay iidaas iyo farxadda bishay 18 May wali ku jirno inuu ku soo daayo iyo xanuunada jira awgeed uu iska sii daayo wariyaha amba samafalaha haddaba asxaabay horta aad iyo aad baan ku mahad celinaya dhamaantiinba waxaan leeyahay ciid mubaarak dhamaantiin madad iyo dibad meel kasta joogteen ummadda islaamka oo dhan Soomaaliya oo dhan waan salaamay waxaan leeyahay عيد مبارك حابة قالقة إن شاء الله وحرجينا يا بشر رمضان إننا بحذي الحمد لله خير كذا إنه لهينا وافتشيو يعني صوم كنا يسلادنا وحنقول له دعاءنا ولهينا قاقبله دماتين بو وحنكو جينا ودعاء سنين أز ودعاء 60 مركز إن شاء الله بسم الله الكريم وحنذيب لنقاضيا بشر رمضان وطبحذي إنام waxaan ku leeyahay waxyaabo aad ku farxdeen waxyaabo aad ka heshiin waxyaabo yacni idin farxad galiya inay idin la soo wadaago maadaama asxaabteeda tino dib iyo dheefaad la soo qaybsateen ilaa channelka Sirooya ilaa isagoo imka iska ma sha Allah ya waxaan ku leeyahay markuu ma sha Allah si dhaafana
waxaan ku leeyahay bashbashii barwaaqo tagana aad garabta isa aad ila socoteen aad ila socon doontiin baan rajaynayaa ma garateen marka waxaan leeyahay ciid mubaarak horta wax loo mahad celiyo waxa ugu wanaagsan dadka markasta ku garab taagan dadka markasta xaaladada ka warhaya dadka marka xanuunsatid ku soo duceeya hadii maanta la yiraahdo inantii jana kale way xanuunsanaysaa dadad igu soo ducaysiin oo kale marka waxyaabaha arko aad baan si farxad moogtay aad iyo aad bad mahadsantiin marka insha Allah waxaan rajaynayaa inaan dhamaanteen wada guuleysano guul iyo gobonimada ay wada gaarnadii mise guul iyo gobonimada la oran jiray maxaa la oran jiray ma garanay marka aad iyo aad bad mahadsantiin waxaan leeyahay habeen wacan oo wanaagsan mac salaama